marka aad tahay qof nolosha hiigsi ka leh halganna ugu jira sidii uu u rumayn lahaa riyadiisa waxaad la kulmi caqabado kala duwan. mararka qaar waxaa kaa dhammaan dulqaadka iyo adkaysigaba. waxaa kugu dhici rajabeel marka aad halkaa taagan tahay. haddii lagaaga taariikhiyo nolosha shakhsiyaadka qaar ay ku sugan yihiin, caqabadahaagu waxay noqdaan mid ka fudud sida uu malahagu yahay. qisadaana waxay kugu dhalisaa dhiiranaan iyo karti hor leh. qisadanina waxay la mid tahay qisooyinka shakhsiyaadkaas oo kale. markii ay dhagaha bulshada ku soo dhacday in uu jira wiil 15 sano ku dhacay fasalka koowaad aanna weligii u gudbin fasalka labaad, hadal haynteedu cirka ayay isku shareertay. inkasta oo dad badan oo maqlay arrinkaa ay qaadan waa ku noqotay, haddana markii ay ila kala duwan ka heleen xogta waxay garwaaqsadeen in ay dhab tahay. yaab ayayna ku noqotay. isweydiin ayaa dhalatay siduu 15 ku bartay isagoo rajo dhigin. dalkeebuu u dhashay? haddase miyuu weli wadaa waxbarashadii? iyo su'aalo kale oo badan. su'aalahanna waxaad uga bogan doontaa jawaabahooda muuqaalkan qaybtiisa dambe. magaciisu waa Joseph. wuxuu u dhashay dalka Rwanda. wuxuu wax ka bartaa dugsiga hoose ee Kizanze. 15 sano ayuu arday ka yahay fasalka koowaad. Joseph waa 26 jir. marka ay dadka arkaan muuqaal ahaan, maadaama uu yahay qof gaaban, waxay ku qiyaasaan 12 jir ilaa 15 jir. Joseph waa wiil dhalinyaro ah, balse koritaanka jirkiisu joogsaday isagoo da'yar. inta badan waxaa sababo arrinka xanuunka la yidhaah dwarfismka. Joseph wuxuu galay dugsiga sanadku markuu ahaa 2006. waagii la beddelayey dugsiga magaciisa Joseph wuxuu ahaa fasalka koowaad. markii ay macallimiintiisu howlgab ka noqdeen, Joseph wuxuu ahaa fasalka koowaad. intii marba la beddelayey deriska dugsiga noocyadiisa kala duwan, Joseph waxa uu ahaa mid ku fadhiya kuraasta dugsiga. wuxuu ahaa mid soo dhoweeya waxyaabo badan oo cusub, misna sagootiya waxyaabo badan oo duug ah. si kastaba ha ahaatee, arrinkii ugu adkaa wuxuu yimid markii ay ardaydii 2006 ay wax barteen dib macallin looga soo dhigay dugsigii uu Joseph ardayga ka ahaa, misna mid ka mid a ardadii uu wax la soo bartay isla dugsigii macallin ay ka noqotay. Josephna uu yahay mid ka mid ah ardaydeeda. dad badan oo doonayay inay arkaan sida uu uga falcelin doono ama dareenkiisa marka ugu horaysa ee uu macallimadaasi arko ayay u imaadeen dugsigii. balse markii ay soo gashay fasalka, macallimada cusub oo hore u ahayd ardaydii Joseph wax la soo baratay, si la mid ah ardayda kale ayay si cusub isu barteen. sababtoo ah Joseph wuu hilmaamay, xitaa ma ogeyn jiritaankeeda. inkasta oo ardayda fasalkiisu isku taxluujiyeen in ay Joseph ka caawiyaan waxbarashada, haddana dhammaadka sanadka marka la keeno natiijada imtixaanka, Joseph wuxuu noqdaa mid keeno dhibco hooseeyo kuna dhaca fasalka koowaad. si kastaba ha ahaatee, haddana Joseph wuxuu ahaa mid aan daan fasalka koowaad. Joseph oo ku hanweyn in sanadka xiga uu noqon doono mid uu ku dadaala una baasa fasalka labaad, ayaa dareen xooggan ku suga bilowga sanadka dugsiga cusub. haddii aad is leedahay miyuusan lahayn ehel iyo arxan ka joojiya intuu ku celcelinayey sannadaha oo dhan, haddaba waa tan hooyada Joseph oo ah mid nugul kana awood badatay Joseph jacaylka uu u qabo waxbarashada. hooyadiina waxay tiri, jacaylka iyo hamuunta uu u qabo waxbarashada waa mid la yaab leh. kama baaqda dugsiga xitaa maalin qura. cidda ay doontaba ha ahaatee, marna ma aqbalo in la soo faragashto arrimihiisa waxbarashada. Joseph waa wiilkayga labaad. xanuunka maskaxeed ee ilowshaha
wuxuu sababay inuu Joseph hilmaamo waxa dugsiga lagu soo baro. Marka aan u dirsado inuu ii soo iibiyey shay, inta badan wuxuu ii keenaa shay kale anigoo xanaaqsan. Marka aan weydiiyo waxa uu keenay sidii caadada ahayd, wuxuu iigu jawaabaa, waan hilmaamay. Joseph saacadaha dugsiga ka hor wuxuu ii qabtaa hawsha guriga, isagoo biyo ii soo dhaamiyo, kadibna wuxuu orod ku aadaa dugsiga. Aniguna waxaan idhi intii uu rajo dhigi lahaa ha barto dugsiga. Sanad walbana waxa keliya ee aan arkaa waa jacaylka uu u qabo waxbarashada oo marba marka kasii dambaysa sii kordhaysa. Waana iska daayay. Waxaan sugaba waa marka uu iskii u go'aansado, ayay Joseph hooyadii ugu jawaabtay waraysigii ay siisay wariyayaasha. Wariyayaashii ayaa mar kale weydiiyey Joseph su'aalo dhowr ah. Josephna si degan oo aan wareer lahayn ayuu uga jawaabay, isagoo leh, ardayda badankood waxay iigu yeeraan the old man, ninka weyn. Ardayda iyo macallimiintaba marar badan waxaan kala kulmaa cay iyo niyad jab. Si kastaba ha ahaatee, anigu ma ihi mid sidaa ku rajo dhigo. Waxbarashadaydana waan ku dadaali, maalinna waan uun qalin jebin doonaa. Rajadaydu intaa kuma eka. Marka aan dhammeeyo dugsiga, waxaan baran doonaa cilmiga siyaasadda. Waxaan hoggaanka u qaban doonaa dalkayga Rwanda, inkasta oo aysan u muuqan mid suurtagal ah, balse waxaan hubaa in aan suurtagelin doono maalinta ee ahaataba, ayuu Joseph ugu jawaabay wariyayaashii. Joseph iyadoo ay rajo u muuqan ayuu haddana ku hanweyn yahay rajo oo keliya lama uusan fadhiisan. Wuxuu ku dadaalaa una daalaa oo uu u istaagay inuu rumeeyo riyadiisa. Joseph uma muuqata noloshiisii hore ee fashilka ah, sababtoo ah wuxuu aaminsan yahay in ay u horseedi dib u gurasho. Rajo dhigista nafteeda ayuu ka rajo dhigay. Rajo dhigista nafteeda ayuu colka goostay, waana midda ta u horseeday inuu u dhabar adeego cayda iyo aflagaadada kaga imaan dadka kale. Waa midda waxa sababay inuu yeesho dulqaadka uu ku fadhiyey 15 sane ee uu u halgamayey rumaynta riyadiisa. Joseph waa geesi guuldarradiisa guul ku hantay. Xikmadda ku lamaan arrinkan ma aha mid ku eg dugsi ama fasal lagu dhacay. Marka aad ku adkaysato hadafka aad aaminsan tahay, una istaagto sidii aad u rumayn lahayd riyadaada, dadku siyaabo kala duwan ayay uga falcelinayaan. Marka aad sanad, 2 sano, 3 sano aad u halgantid rumaynta riyadaada, muddada gudaheedana adigoo aanan gaarin weli halkii aad rabtay, misna weli ku taagan hadafkaaga iyo sidii aad u rumayn lahayd, dadku waxay ka oran, muddadaas oo dhan waxba kuma aadan qabsanin, meelna kuma aadan gaarin, maxaad isu daalin, iska daa, maad waalatay, doqonnimo badanida iyo erayo liita oo la mid ah. Iyagu waxa keliya ee ay arkaan waa muddada ay kugu qaadatay rumaynta riyadaada. Ma arkaan damaca kugu lamaan iyo dhiiranaanta iyo hamuunta aad u qabtid rumaynta riyadaada. Waxay kugu ridayaan niyad jab. Mararka qaar adigaa iska shakinaya. Niyad jab ayaa dareemaysaa, balse ma ahan in aad dheg u dhigtid. Talooyinka taban ee kaaga imaanaya dadka khaldan ma garan karaan dareenka ay leedahay inuu qofku meel hiigsado. Ma garanayaan dareenka ay leedahay inuu qofku aamino in ay ku jirto awooddii uu ku gaari lahaa hadafka uu hiigsanaya, sababtoo ah weligood nolosha meel kama ay hiigsan. Mana garan karaan dareenka ay leedahay inuu qof u istaago hadafka uu aaminsan yahay. Hana ka filan in ay ku aaminaan amaba ay ku fahmaan. Hana u joojin. Haddii aad u dheg u dhigi waydad hadallada liita ee kaaga imaanaya dadka kale, waa hubaal waad gaari halka aad hiigsan. Guuldarrada dhabta ah waa marka aad ka kici waydid meesha aad ku dhacdo, horena u sii socon wayda, balse inta aad hore u socoto waa hubaal inaad guulaysan. Hore u soco, hore u soco, hore u soco.